السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha falla hadii channelka aad ku cusub tahay subscribe gamalkan riix si aad u noqoto mar walba saaxiibka la socda barnaamijyada ciyaaraha. Maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheynaya guud ahaanba inay gacantooda ka bixiyaan da'yarkooda ee Junior Firpo maadaama laacibkani marka uu noqon karo ciyaartoyda sanadka cusub ee iska fasaxi doonta kooxda kubadda cagta Barcelona. Jirada Calcio Mercato ee dalka Talyaaniga ayaa markaa xusaysa in kooxaha kubadda cagta Inter iyo AC Milan ba ay aad u ceesanayaan dalabka ciyaaraankaasi Junior Firpo waxa lagu tiriyay in ciyaartoyda ugu muhiimsan ee waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Barcelona uu kamid yahay laakiin Barca ayaa diyaar u ah in gacantooda ka bixiya ciyaaraankaasi. Waa ciyaaryahan garabka bidix ee difaaca ka ciyaaraya kooxda kubadda cagta Barcelona. Xidigan Junior Firpo ayaa markaa aan ka haysanin fursada ku aadan garoonka Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Hadda Barcelona ayaa markaa ogolaanaysa in Junior Firpo uu noqon doono dhowrka ciyaartooy ay Barca go'aansanaysa sanadka cusub inay markaa suuqa dhigi doonaan. Tababaraha kooxda kubadda cagta Everton ayaa markaa doonaya in uu garaaco kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo West Ham United dalabkii ku aadana wariyaanka kooxda Lyon ee Moussa Dembele. Xidigan ayaa markaa la filayaa guud ahaanba inuu isaga soo dhaqaaqi doono horyaalka liigaanka waddankaasi Faransiiska. waxaana kooxda Lyon doonaysaa inay ku fasaxdo adduun lacageed gaaraya 30 milyan oo lacagta ganiga ee dollar u dhiganta 39 milyan. ciyaarankani Moussa Dembele ayaa markaa ku guuldareysatay kooxda kubadda cagta Manchester United inta uu farnaa suuq iibsiga ciyaartoyda. Haddaba Everton tababarahooda ayaa markaa rajeynaya in waqtiga kan xaadirka isku day xoogan kooxda markaa ay sameyn doonto. Everton waxay diyaar u tahay in kooxaha kubadda cagta West Ham United iyo Manchester United ay ku garaaci doonto saxiixa ciyaaraankaasi Moussa Dembele oo sidoo kalena ay aad u xiiseynayaan qaar ka mid ah kooxaha ka soo jeeda horyaalada Shiinaha iyo Mareykanka. Everton ayaa markaa natiijo xoogan doonaysa inay ka gaarto ugu dambeyn haddii ay ka helaan wada hadal ku aadan maamulka kooxda kubadda cagta Lyon oo diyaar u ah kaliya inay dhageystaan adduun lacageed gaaraya 30 milyan dalabka ciyaaraankooda ee Moussa Dembele. kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska ayaa doonaysa mar kale isku day ku aadan xidiga David Alaba ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa markaa sheegaya fursad aad u wanaagsan wali inay u tahay kooxda kubadda cagta Manchester City. waxaan ka warsugi doonaa go'aanada ugu dambeeya ay qaadan doonaan maamulka sare ee kooxda kubadda cagta City. maxaa yeelay waan hordhignay go'aanada ciyaartoyda dhaxalgalka ee kooxda kubadda cagta City oo qorshaysan inay la soo wareegto sanadka cusub. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay ku dhawaaqaysay inay xooga saari doonto dalabka ciyaaraankaasi balse David Alaba ayaa markaa doonaya guud ahaanba inuu ka soo badasho Bundesliga waddankaasi Germany. saas darteeda qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska ayaa durbadiiba u soo qalab qaatay waxaana ay ku dhawaaqeen inay si gaar ah u daneynayaan saxiixa xidigaasi u dhashay waddankaasi Austria David Alaba. Manchester City tababarahooda macallin Pep Guardiola ayaa markaa rajeynaya inay kooxdiisa markaa ku guuleysan doonto dalabka ciyaaraankaasi David Alaba sanadka cusub. wariyaanka kooxda kubadda cagta Liverpool Roberto Firmino ayaa markaa guud ahaanba dafiray hadaleyntu ku aadan inuu isaga dhaqaaqi doono istaadiyaha Anfield marka uu dhamaado xil ciyaareedkani. laacibkani ayaa jahwareer xoogan ka haysta dhinaca goolalinta waxaana hadda la xusayaa in ciyaaraankaasi uu aad markaa u doonayo in uu sii joogo doono istaadiyaha Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa laacibkani reer Brazil Roberto Firmino wax culays xoogan uu ka soo wajahay dhinaca maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool ayagoo markaa xusayay inay aad markaa u baadi goobi doonaan bedelka ciyaaraankaasi Roberto Firmino. xidigan ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku soo biiray sanadii 2015 waxaana heshiiska istaadiyaha Anfield uu haystaa tan iyo sanadka 2023 balse kooxda kubadda cagta Bayern ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Germany ayaa aad markaa u xiiseynaysa ciyaaraankaasi haddii uu go'aansado xidig reer Brazil Roberto Firmino inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Liverpool inay mar kale dib ugu soo dhabeyn doonaan horyaalka waddankaasi Germany. Roberto Firmino ayaa yiri wali maanan go'aansana mustaqbalkayga wali waxaan ahay xidig aad ugu faraxsan istaadiyaha Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. sidoo kale wuxuu diiday dalab dhawaan ka soo gaaray kooxda Marseille ee ka dhisan horyaalka liigaanka waddankaasi Faransiiska. tababaraha kooxda kubadda cagta Benfica ee Jorge Jesus ayaa markaa guud ahaanba cadeynaya in ciyaaraankiisa Nunez guud ahaanba uusan ka dhaqaaqi doonin kooxda. toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa wariyaankan u dhashay waddankaasi Uruguay ee Nunez waxa la hadalhayay in markaa target muhiim u yahay kooxda kubadda cagta Barcelona oo doonaysay inay ka dhigtaan bedelka Luis Suarez ee markaa u dhaqaaqay kooxda Atletico Madrid. haddaba ciyaaraankan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa markaa la sheegaya inuusan ka dhaqaaqi doonin sanadka cusub markuu dib furmo suuq iibsiga ciyaartoyda sida uu ku dhawaaqayo tababaraha kooxda kubadda cagta Benfica ee Jorge Jesus waxaana uu xusayaa in wariyaanka
imaatinkiisa Nunez uu yahay xidig waqtiga kan xaadirka ay aad ugu baahan tahay kooxdiisa mana jirto sabab loo iibin karo ciyaaraankaasi Nunez suurtagalna ma noqon doonto in Barcelona si fudud ay ku qaataan sanadka cusub waxaan aad ugu qanacsanahay shakhsiyan ciyaaraanka inuusan ogoleen inuu ka dhaqaaqo kooxdiisa Benfica maxaa yeelay wax walba uu ku haystaa balse waxaan aad ugu faraxsanahay Nunez in dalab muhiim ah uu markaa ka helo qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan qaarada Europa oo ay ugu horeeyaan kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Manchester City kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa doonaysa in xiriir aad u wanaagsan bal la sameeyo tababarihii hore kooxda kubadda cagta Tottenham ee Mauricio Pochettino oo doonayaba inuu qabto xilka hogaaminta kooxda kubadda cagta Manchester United haddii markaa ay u dhawaaqaan inay bedel kaga dhigaan tababaraha kooxda Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer waxaana hadda jirada Tot Sport ay shaacinaysaa in kooxda kubadda cagta Manchester City ay wado isku day ku aadan xiriir aad u wanaagsan ba inay la sameeyso tababarihii hore ee Tottenham ee Pochettino kooxdan lagu magacaabo Sky Blue ee Manchester City ayaana ilaa hadda aysan wax jawaab ka helin tababarahooda macallin Pep Guardiola heshiiska wada hadallada uu kula joogo kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa kaga ag bisha June ee sanadka food ee nagu soo haysa maamulka kooxda Manchester City ayaa walwal aad u fara badan ka muuqanaya dhinaca Pep Guardiola maxaa yeelay ilaa hadda macallin Pep Guardiola muusan ka hadlin arrimihiisii mustaqbalka ee kooxda kubadda cagta Manchester City waxaana ay u muuqan kartaa ayaa la leeyahay Pep Guardiola inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Manchester City haddii uusan maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City uusan kala hadlin arrimaha ku aadan heshiis kordhinta ee kooxda kubadda cagta Manchester City saas darteeda durbadiiba City waxay u dhaqaaqday inay markaa xoojiso xiriirka ay la sameeyaan tababarihii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino oo shakhsiyan doonaya inuu qabto xilka hogaaminta ee kooxda kubadda cagta Manchester United maadaama hal kaliya uu ka taagan yahay tababaraha hogaaminaya United-ka ee macallin Ole Gunnar Solskjaer tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa kula talinaya madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Real Madrid inay kooxdu markaa ceshato labada ciyaaryahan ee mustaqbalka u ah sida Sergio Ramos iyo Luka Modric labadan ciyaartooy ayaa dhaxalgal waqtiga kan xaadir ku ah kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaan aaminsanahay in labadan ciyaartooy ay si weyn kaga dhex muuqdaan kooxda kubadda cagta Real Madrid inta badan hoos u dhac xooggan ayaa mustaqbal ahaan ku yimid kooxda kubadda cagta Real Madrid balse haddii ay suurtagal noqoto in ay sanadka cusub labadaas ciyaartooyba ay lumiso kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay noqon doontaa Real Madrid in dhabarjabka ku dhaca aysan marnaba noqon doonin inay ka soo kabtaan xidigahani ayaa waqtiyo kala duwan marka la soo qaatay kooxda kubadda cagta Real Madrid sida Capitano Sergio Ramos oo ku soo biiray Real Madrid garoonkeeda sanadii 2005 xilligaas oo kooxda Sevilla marka uu ka soo qaatay heshiiska saxil ciyaareedkan oo ayuu markaa kaga egyahay halka Luka Modricna uu markaa kooxda ku soo biiray sanadkii 2012 waqtigaas uu ka soo dhaqaaqay kooxda Tottenham Hotspur heshiiskiisaasna wuxuu ka egyahay xil ciyaareedkan oo kaliya saas darteeda tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa kula talinaya in ciyaartooydani ay sii joogaan xil ciyaareedka soo socda inta laga helaya labadaas ciyaartooy xidiga u dhigma ee mustaqbal ahaan kala wareegi doono shaqada kooxda kubadda cagta Real Madrid aad ayaan ula dhacsanahay qaab ciyaareedkooda ma jirto ciyaartooy aan la barbar dhigi karo markii loo eego dadaalka ay u muujinayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid xitaa waxaan aaminsanahay in labada ciyaaryahan Sergio Ramos iyo Luka Modric ay aad u doonayaan waayahooda ciyaareedba inay jecel yihiin inay ku soo gabagabayaan garoonka Santiago Bernabeu waryaanka kooxda kubadda cagta Barcelona Antoine Griezmann waan ka damqanayaa dhaawaca soo gaaray Ansu Fati waxaana laacibkani reer Faransa ee Antoine Griezmann uu leeyahay runtii Ansu Fati waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waa ciyaartooyda waqtiga kan xaadirka ugu firfircoon ee ka dhex muuqanaya horyaalka liigaha wadankaas Isbaanishka xidigani ayaa dhaawac adag ka soo gaaray dhinaca jilibka kulan ciyaareedkii ay natiijo weyn ka gaartay kooxda Real Betis oo ay kaga adkaadeen 5-2 saas darteed laacibkani ayaa markaa dhaawac halis ah markaa ka soo gaaray qaybta jilibka waxaana uu laacibkani reer Faransa Antoine Griezmann uu leeyahay xidigani waa laacib muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidig daayar ee xifradiisa kubadda cagtana mar walba ee marka aad u sareyso waxaana sidoo kale rajayn doona sida ugu dhaqsiyaha badanba in garoomada marka uu ku soo laaban doono maadaama kooxda kubadda cagta Barcelona walwal dhinaca dhaawaca marka soo gaaray ciyaaraankaasi waxaana dhaqaatiirta kooxda kubadda cagta Barcelona ay hore u xaqiijiyeen in ciyaarankani marka uu garoomada uu ka maqnaan karo inta u dhaxaysa 3 ilaa iyo 5 bil ayaa marka la leeyahay in garoomada uu seegi doono waa dhaawacyadii hore marka ay u aafeeyeen ciyaartooy marka ay kamid ahaayeen Ousmane Dembele iyo Luis Suarez waxaana hadda la xusayaa kooxda kubadda cagta Barcelona inay rajeynayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in lala tacaali doono dhaawaca jilibkaani ka soo gaaray xidigan da'da yar ee Ansu Fati daayarka u dhashay wadanka Isbaanishka ayaana markaa kamid ah ciyaartooyda ugu hadal haynta badan markii loo eego da'yarta waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya kubadda cagta tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Ronald Koeman
ayaana markaa yiri runtii aad ayaan u gubanayaa markaan arkay dhaawaca soo gaaray Ansu Fati maxaa yeelay waa laacib galgalkiisu aad u sareeyo waxaana uu kamid ahaa tiirarkiiga waqtigan xaadirka ayaa laga soo xigtay tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ronald Koeman ugu dambeyntiina ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Galatasaray ee Radamel Falcao ayaa markaa diyaar u ah inuu ka dhaqaaqi doono sanadka cusub kooxda kubadda cagta Galatasaray ee horyaalka wadankaasi Turkiga waryankani ayana markaa doonaya guud ahaanba in horyaalkaasi uu soo macsalaamayo maadaama maamulka sare kooxda kubadda cagta Galatasaray aysan markaa awoodi karin mushaaraadka faraha badan ee dhinaca dhaqaalaha uu markaa ciyaaraankan kooxda uu ka qaato waxaana Radamel Falcao uu guud ahaanba diiday inuu sameeyo mushaar dhimisa sidaas darteed kooxda kubadda cagta Galatasaray ayaa doonaysa inay gacantooda ka bixiyaan xidigani Radamel Falcao ayaa aad waxa uu xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Inter Miami ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Mareykanka balse ciyaaraankan ayaa guud ahaanba dalabkaasi kooxda reer Mareykan Inter Miami iska diiday kadib markii dalabka uu ka soo gaarayo kooxda reer Mareykan ee Inter Miami ee xaaska u dhaxda ay lahayd sidaas darteeda ayuu markaa u kansalay wada hadalkii kooxda kubadda cagta Inter Miami hadda kooxda kubadda cagta Inter Miami ayaana markaa dib u soo celin karta wada hadalkii ku aadanaa ciyaaraankaasi Radamel Falcao marba hadii diyaar u yahay bisha January ee sanadka 2022 in uu diyaar u yahay ka soo dhaqaaqista kooxda Galatasaray ee horyaalka wadankaasi Turkiga